sheekh dhulka bannaan ee ku yaala miyiga iyo magaalada maxaa lagu mulkin karaa dhulkaas yaa mas'uulka ah nabi su'aad sheekh wa akhriyay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam la hima illa lillahi wa rasuulihi fahama an-naqi'a wa hama umaru asrafa war-rabada yani nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xishiimo waxa la Soomaalidu tiraahdo oo nin aagun iska soo xidhan ma jirto waxa xidhi kara ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam iyo dadka mathalaya oo madaxda ah oo dadka muslimiinta madaxda u ah iyaguna waa sameyn karaan ma isaga naftiisa inuu xidho lama ogolo waa inuu u xidhaa maslaxada caamka ah iyo sadaqaadka xoolaha sakawaadka la keenayo waxaana damaanta socdo oo Soomaaliya eberka iskaga dhigtay qola imanayso meel bay ceel ka qodi qola odhanaysa way ku mulkinayaan waa u diidi dagaal baba bilaabmi qola kala imanayso ood bay meel ku xidhi bannaan cidla ah waxyaalaha daan la yaabnay dawladii ilaa anagu markii maanaan garanayeen oo markaan meelaha un maqallo aqli toosan oo caafimaad qabaad nagu caymise waba ka xanaaqi jirnay madaxweynaha lagu amaani jiray bay kamid ahayd waxay ahayd hobalada oran jiray waa ka xanaaqi jirnay baashaas ma aanan fahansanayn ilaa dawladdan Allah aan xamanayno oo ayada hoosta ku wadno meelaha ka soo baxno ashaa ku cabno ilaa dawladdan waa nicma min ni'am warkama hayno markay burburtay oo dadkay noqdeen fuqara oo dadkay noqdeen agoon oo dadkii waxa la waxay cunaan waayeen oo u soo noqonay xooleen ma ilaahay nagu fakiyay baan dawladda horta ogaanay soo ma arkis dadkii waxay ku taateen marka oo lacag moodeen dhulka wada magaalada Portland saaka waxooga ku lugeeyay dhagaxyo oo sidii u socda ba ka soo noqonay yani waa boosas bagoyo halkan ilaa galkacyo waxa suurad inuu socdo ilaa iyo meesha la yiraahdo boosasa qola kasta waa sidaas meel kasta waa sidaas dadkii marka lacag bay moodeen meel kasta xidhanayaan waxa lagu mulkin karaa dhulka sidoo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam man ahya ardan mayita dhul dhintay waa dhulkan cidina lahayn qofka nooleeya fahiya lahu isaga u sugantay waxa lagu nooleyn karaa ceel inuu ka qodo beer inuu ka sameeyo jidaar inuu ku soo meero oo jidaarka markuu ku soo meerayana waa xadaysan tahay ma aha wadan ilaahay inuu iska xidho burtinle in leeg intuu iska xidho inuu yaraysto masruufto kulba yar dadka ka gado kulba yar waxaas ma banaana lagu ma xajin karo caruurta siinin waxaad cunaysaa bulshada wax ka dhaxeeyay waxa lagu ogoliyay guryo waxaad dhisatay weyn ninba iska xidhansanay dhul ilaahay waxa wasar xaajigaas wadanka ale isaga marka laga gadayaa isaga la waxaynaya waxa kale oo lagu mulkiyaa waxa la wixii curfi ah oo la isla ogyahay ma qaan hadda idinku halkan wixii curfi gaar ah ma ilaa baalka yiraahdana calaamada miya curfi ah oo caadada ah ma dhagax lagu soo la dhigaba lagu heshiisan yahay waa kaas minashibiyada dawladda hoose wixii ay siisa dadka oo macquul ah oo guri la dhisanayo iyo madrasad meel laga dhisayo caama iyo meel masjid laga dhisayo iyo waa kaas oo la siiyo xariim wax la yiraahdo in yaro lagu ilaaliyo oo loogu soo dhawaan la siiyo oo aan badnayn waxyaalahaas lagu mulkinayaa jidaarkana ilaa mitir bay culimadu yiraahdeen waa curfi adig wixii dadweynuhu isla yaqaanaan dhulka in lagu mulkiyo waa lagu mulkinayaa nooc dooni ha ahaado day oo tahay haday dhagax dhiga tahay haday illa tahay haday maxaan ku jidaar lagu soo wareejiyo tahay haday dawladdu siinayso yaa lagu mulkinayaa laakiin cishimooyinka dhammaanta jira ee seeraha waxa uu sameyn kara dawladda islaamka madaxweynaha dadka naa'ibka ka ah oo isagu hoos joogaba sameyn kara iyaguna waxa uu sameynaya limaslahati muslimiin dhulka in la xidho in qola sheegato in qolooyinka kale loo diido midna toona ma aha laakiin dhulka mantiqadan hadda aan joogno Portland dad baa u badan qabaa'isha degan baa u badan qabaa'il kale hadda ku soo guuraan ay ku qabsadaan waa ka qabanaynaa oo soo diriishan mayno odhan mayno in al-ardh lillahi yurithu man yashaa min ibadihi soo tawal isku guuy sida darteed waxa la yiri ardu thaqiif baa la yiraahdaa meeshana taa'if waxa la oran jiray laba buurood oo qoran reeday ay leeyeen jabala tayyib baa la oranayay waxa kale oo la yiraahdaa ardu mahara wal isla wada yaqaana
dhulka isagoo ilaahay leeyahay haddana degaanaa la kala yahay si aan dadka u kala celinno isku sii dayn mayno odhan mayno inna al-arda lilaahi yurithuhaa man yashaa'u min cibaadihi oo ku soo aroortay dadka gaalada iyo muslimiinta korkii la fiirinayay munaasaba ahaan ugu timid soo ma arkaysid oo nabiyullaahi muuse calayhi salaam qur-aanka ku soo aroortay odhan mayna taase dadka muslimiinta degaanay kala leeyihiin degaanadaana in loo kala ilaaliyo weeye qolada marka tiraa hadda waxaan soo degaynaa Burtinle reer Burtinle inay diidaan waa mamnuuc laakiin hadday bannaanka magaaladan degaynaa oo magaalo kale aan samaynaynaa yidhaahdaan waa suuroobi kartaa inaan hadegina sababta waxaan ka ilaalinaynaa reeraha halkan degan inay yidhaahdaan waddankii baa lanaga qaadanayaa sidaa darteed dhul cishiime in la sameeyo seere in la sameeyo waddanka in la xidho in lagu badiyo degaanada oo la burburiyo madna toona ma bannaana sharciyan sala allahu calaa muxamadi waala aalihi wasaxbihi wasallam